kulanti wanaagsan dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay oo meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa xogta suuqa media oo aad kala socotaan baraha bulshada aynu ku leenahay internetka sida YouTube-ka, Facebook-ka, Twitter-ka iyo aaladaha kale ee baraha bulshada. Dhageystayaal iyo daawadayaal, xogta suuqa media waa warbaahin toddobaadle ah oo idin soo gudbin doonta inta badan xaaladaha guud iyo kuwa gaar ahaaneed ee dalkeena hooyo, kuwaasoo isugu jira siyaasad, maaweelo dhaqan, caafimaad, waxbarasho iyo ganacsi, taasoo ujeedka guud uu yahay kobcinta fikirka, wadaniyada, dhaqanka iyo isku xirka garaadka guud ee ummadda Soomaaliyeed. dhageystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay, waxaan weli ku guda jirnaa barnaamijkeennii xogta suuqa media qaybihiisii hore. waxaadna hore ula socoteen General Faarax Axmed Cumar Faarax Qarab waxa uu waraysiyadii hore inoogu sheegay xilligii uu kusoo biiray ciidamada badda Soomaaliya iyo sida uu kusoo galay ciidamada. Sidoo kale waxa uu si waafi ah u sharxay xilliga la aasaasay ciidamada badda, awoodii ay lahaan jireen, qaabka ay u howlgali jireen, waajibaadkoodii guud iyo kii gaar ahaaneed. Faarax Qarab waxa uu si faahfaahsan uga hadlay qaabka loo ilaalin jiray xeebaha Soomaaliya iyo waxa laga ilaalin jiray. Cumar Shariif Jeeb waxa uu waraysiyadii hore uga hadlay qaabka ay u aasaasmeen burcadbadeeda, cidda aasaastay, sida ay u howlgali jireen, maraakiibtii ugu horeysay ay qabsadeen iyo sababta ku kaliftay in ay qabsadaan maraakiibta. Cumar Shariif waxa kale oo uu sheegay in ay jiraan shirkado kalluumaysi oo laga leeyahay dalalka caalamka oo xeebaha Soomaaliya ka kalluumaysta, balse ganacsatada Soomaaliyeed ay heshiisyo qarsoodi ah la soo galaan, kuwaasoo sabab u ahaa in ay bataan dembiyada badda iyo burcadbadeed. Xildhibaanku waxaa kale oo si aan gabasho lahayn u shaaciyey qaybo ka mid ah dembiilayaashii xeebaha Soomaaliya haamanka haraaga sunta nuclear ku shubi jiray, qaar ka mid ah dowladihii ay u dhasheen iyo shakhsiyaad Soomaali ah oo qayb ka ahaa. haddaba aynu u gudubno qaybaha kale ee waraysiyada. nimankan dhalinyarada ah duul kaloo fara badan ayaa hawsha kula jira oo u sheega kaba soo qabo manaakib markab kastaba meeshuu marayo dekeda waqtiga kasoo baxayo, isgaarsiinta ku caawiya, la gorgorootanka dadka maraakibta leh na ayagu la gorgorootan, lacagtana ka qaada, dhexdooda mataqaan dalaala ka ah, xataa uu ballan qaaday inay abukaato u noqdaan oy ka difaacaan mataqaan haddii wax ku dhacaan dacwo ah. meelaha qaarkood waxaa lasoo diraasad la sameeyey 40% ayay helaan, 60na dadkaa kale ayaa qaata, laakiin waa reer hebel iyo dekeda hebel iyo dekeda hebel ma dhihi karo. laakiin Afrika, gaar ahaan East Africa, khaliijka, Yurub, intaba farta ayaa lagu fiiqaayay oo dad fara badan oo noocyo kala duwan leh inay arrintaas ku lug leeyihiin. markaanu ka soo tagno, maxaa idin qabsoomay tani intii aad xilka hadda qabatay ciidamada badda? horta muddada xilkan qabtay hadda ma dheero, bil iyo bar baa laga joogaa. waajibka haddana saaran oo ciidamadeed abuurno, mar meel cad aan ka bilaawno si ciidamadeed aan dhisno oo xilkii hor yeelay ciidanka badda hore ayaa welina horyaala ciidan, laakiin ciidanka lama hayo. waajibkeena markuu eego inaan qorshe sameeyo onaana maxaan qaban karnaa, intaan ka bilaabnaa, inse nagu qaadanay, dhibaatooyinkana na horyaala teedaan bilaabnaa. howlahaasoo dhabaan markaan daraasad ku sameeyo, qorshaan dejinay, waxaa noo soo baxaya marka ugu horeysa inaan fursado diyaarsan dadaa ugu horeeya wax la arko. maxayna dadkii hore ciidanka badda ka tirsanay maanta 60 jiray joogaan,
من لحين جركان أنا معلم إيه وفركالي وحكلا هذا أقول كلام ملح ويبدون كوكران وتجال كوكران بد يبرئ ملح سياس أوجد غيران وغيران شنيا للعتم كهور جرتا وحد كل بيت شقق على الدولة قرن أفتر النقن شنبغ عن ديار سنين ميل عدان حر من دكس كما قاومي طلفنا كما قاومي هل كيران دلنا لديكين سنين وحي عيدان كبدا كنول او احترنا او معلم غكاريا مصر كالما واكين سنين فقاسان هذا تببركوذ كجرنا تببرك رقا مركان تببرنا كبعدين قلبك كده قالقلين لو راجع مركا قلبك عصلون لما يسترانا هوش اللي يسوقها مركاز حلك هذا إلا صار مركا هوشها سنة كجرنا إلى إن سيدي قاعدة كرتا أريكاس أريكاس ورطة أرين دما كرتا مباحة برطو أرين انت دوت كجرن جري لكن سؤال وحيتها واجب أوريك ورمت كذا كرتين دافع أقول لك سؤال واجب مركز كذا حي وحلا يطعن معنا من اللي ترى ذات أدو كأهل شيء إنان لص منطعي حوق أهاني هو بهاني لين على ركب إنان لص منطعي أما تكون حوق بلند أنا تلعلك على كلا واجب الوفية سؤال مركز وحيتها كما سوق بعدي برعد بدان لك برعد بدان كلا تيعلمين برعد بدان خير في جوكتو سدح بلوغات دفيد مالي ما كان نعرفته خير في جوكتو يعني ما كرنا هوبتا برعد بدو دمراتبنا ما قبتو طيارنا ما قبتو دومان كيكون كبو بيسي جرين ايو لكو تتعلم كوزن وكلاش خوفي بي امي يوم هانا بزوكي وحكا المقامة حالي ترجرا ولا جرسا لي دور حرست وحكا لي هايا ما بجرا ملا بل يرد مركواني من جرسيالا دي حوالي عجانا خبا قيران ودن نبنا اهيس انو وكو العلارين تاس قيرا ودن اننا قبا oo isla baaraysa dadkaan baddiin madaxantay rabaan u jiray bal ay qoran ee ku leeysiina tus marka heerkaas ay wada joogaan waan ma karno laakiin waxaan rabaa inaan hawsta gaar yaqsido aad iyo aad rabto inaad waajib fuliso sharad ma inaad darbaahay ku fuliso baad midi ala shaqorta geeliso ama qora qaado wax ka horeeya dhici karo kaba marmarka arko fiican aad waxa laga yaabaa in hadii furcad badeed la wacyi geliso oo dadkooda wacyi geliso oo waxay ku jiraan inayna fiicnayn la tuso haddii dhahayo shalay mataan ciidan badeed dowladdu ma jirtana la yiraahdo dowladdu waa timid ciidan badeedna waa yimid wax alla wixii shalay u dagaalamaysiin waa joogaan dad si sharciya loo xil saaraa jooga idinkana mataan waxaad ku jirtaa ka baxa haddii la yiraahdo waa laga yaabaa haddaan lagu wada guulaysan qaar lagu guulaysan karo شغلات على الوقت أي الوقت أجر هذا مدلل يجوا حد راسكم مالك على هذا ولا جوا بدلان وحال مغلب من اللوب أو دليرة إلي وكفرنا على بعضنا لوقا هي كفرنا على أنت أصبرت أرو نوركل أو ليوبي ما عاد علم يبغالين بانو دليرة أيها وعن كذا جواب إلي هو كمان صنع مركو حبل لقي على بعض خد بينا المعرض يصير حدود بقى إنه سكال أرنتو حل عالم بارك يستريح أي أدعي كرت أي قال طلوع أدعي كرت قوة فيها خبرته اللي يسعيد استلفته ثم مدين بطاق جيرين تيالنا وجيرين خبرته اللي يسعيد أي أدعي كرت مركا أنو حنقضى أرنت هدي للصومالية ودفك الله كجرة اسكدايا صومالية نجعان قصيان جعان مالية علميات سياسة جيسي نوجلين أنا كان على السيئة دون نسيه وحلقة بعد دوان قول دكتورة إنك كيني كلا رتابر عباد تفانو قوامسا مثلا إلهي هذا إذن بلان قادي تيين كإذن وبدا بين بلان قادكو وبريه عالمكو إن الصومالي بيقول عن قعان فيه إذن كيدي قعان له فيه كاران إذن قبطة قعان له فيه وركاسو آذو وبريه لكن ولي واحد طبعا نسو قاري هذا إلى عدم جرى لكن العالم ما نبيه كرا أرم أيا كهرسو أيضا أن هذين أمني يخلطون بين دلك وجودهم كيسا سيدا عيني بدك كليا معناها قلب إيو عين إيو
iyo tageyn loogu heli karaa ma arrintu way soo socotaa oo arrintu arrin ciidanka badda ku gaara maaha ciidanka dhulka cirka kulli taliyaashoodii waa la magacaabay iskuulaadana la sameeyey si leeyihiin ciidamada kale hawshu waa wada socotaa sababtoo ah barbaleebka soomaali ka taaganba maanta dhulkuuba ka taagan yahay siyaasaduna waa dhinac socotaa oo gogol nabadeedaa fidsan misaal haddaan hadda soo qabanno dhowaan in dhacdaa ka soo baxay qolyihii wasiir dawlka wasiirka shandhigaa laga dhigay wasiir dawladda shandhigaa laga dhigay soo maa marka ragga naga soo horjeeda waxna waa laga wadaa wixii manaasib dawladeedna inay wax keenaan waa la ogyahay maxaa soo kordhin karaa wasiir dawlaha loo magacaabay in dhacda siyaasadda soomaaliya maxay ka bedeli kartaa maadaama uu yahay nin asalkiisa hore kasoo jeeda ciidamada xoogga dalka haddana uu hoobsiitay hogaamiye kooxeed oo wejiyo badan leh lagana yaabo ilaa aad inay weji kale u qarsan yahay maanta soomaaliya waxay tixgeliyeyso waxyaala badan adduunka waxaa la tixgeliyaa axzaabaa la tixgeliyaa axzaab dawlad samaysta wadaag gaaraan meelaha rabash ka taagan yahay soomaaliya maanta yahay axzaab aan iswarsaday shalay qabiila xisb ahay welina waaya hadda waxaa kusoo darsada shabaab xisbul islaam iyo umuuro kale iyo dawladda wada axzaab marka ninku xisbu ka saaraa waana hubaysan yahay xoogna waa leeyahay soo in wax hadduu ka yimid beeshi soo in wax laga dhiga soo maaha waa in wax laga dhigo saasa wax looga dhigay geesinimona waa tahay dawladdana warkeedu inuu run yahayna waa ka muuqanaya meesha oo nin kastoo yimaada in booskiisu diyaar yahay waa ka muuqanaya meesha saas waa marka arrinta danta laga leeyahay waa dan siyaasadeed waxaana qabaa anuu aad iyo aada ninkaan runta markii aynu eegno indhacde xilligii oo isbaahisiga dib horeynta uu ka mid ahaa wuxuu ahaa dhinaca gaashaandhigga ayuu u qaabilsanaa waa uuna kasoo horjeestay marka hadda waxaa loo magacaabay wasiiru dawle marka jeeblayaasha qarxa ee kale ee hadda dalka ka jira ee ururada goonida kale leh iyaguna xilalka loo magacaabaya intee laga sii usheegi daldoode dawladda tabaana qaarkood xilal leh marka anagu awood aan ku dhahno qalabay kugu tahay inkastoo la wada og yahay maanta kabtanada iyo saraakiisha haddii la weydiiyo shaksiga ugu weyn ee markasta ka hor imaan jiray inaan aniga ahay maanta la wada og yahay markastana la dagaalami jiray waxyaalaha foosha xun uu ku samaynayo dadba hadday noqon lahayd xaalufnimada iyo hadday noqon lahayd sunta badda lagu shubayo laakiin awood aan annaga iskaga dhicno ama cilaan ugu dacwon ama andhaan warmooyin xaqdaradaas samaynan ma jirto sababtoo ah muuye waxyaalahan uu samaynayo waxaa adiga macnaha uu isku haleynaa dawlad alla dawlad markaas soo baxda oo dhismato marka annaga awood aan ku dhahno nin yahow waxaan waa wax barito taariikhiyan ama in lagu soo qabto oo maxkamada lagu soo istaajiyo waa nin aaminsan bay in wax kasta uu ku furdaamin karo lacag marka waxaan waa wax raali looga yahay waa dad badanaya oo maamul ku jiro ayaa raali uga ah dad badan oo xiriir leeyihiin annaga haddaan magacyadooda kuu sheegaynin ayaa waxaan oo dhanba loo aan kaa dhexgalay yaa ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida ee ku sugan dalka soomaaliya oo asagoo xiriir gaarka wada leeyahay inta badan wallaahi asaga madaxweynaha waa saaxiibkiisa madaxweyne cabdullahi yuusuf oo ninaan laga soo mari karin oo aad iyo aad saaxiib u ah inkastoo uu madaxweynaha waa qaban u leeyahay mooyin wuxuu ka samaysan yahay laakiin haddana waa saaxiibkiisa haddana midda kaloo aniga igu mucjisada doonaa waxay tahay mooyin cid siyaasi oo soomaaliyeed wuxuu xaruur u lahayn male marka marmar waxay ku tusaysaa shirka ka dhacaya suxubku uu ka warqabaayo dadaa warbixinka u gudbiyo shirka jawaar ka dhacayana dadaa u gudbiyo marka waa nin labada dhinacba u qaybsanto marka laga soo tago taas adiga ayaan hadda hadalada hadda ama sirta hadda adiga aad ka bixinaysid injineer mudi miyaysan macnaha laga yaabin oo mid adiga shaksiyadaada ama nafsadaada macnaha dhibaata u keenaysa mustaqbalka oo isaga xaggiisa kaaga imaanaysa maadaama shaabka awood uu leeyahay wallaahi horta ilaahay
أو الدلال أنا مرنا مثل بني آدم أو احتله وقتي الله يقرأ تعالى لمنا لكن أنا مرنا مو الظلم كيف يلقبديس وحياله وسمعنا عبسير وأنا وقع بعضيرات مال منك بني آدم كان ملكه حق كتاجين هاي حق أمد الصومالي هو الله هبدو كل انتو قلتوا حما من سنة إن أنا وحده عيلة أنا القبول لكن عن كل شيء مو أيانا وحده يقاضي كلام أذكر وحده يقاضي كلام إلهي مويه فأنا مويه هبدو دولة فدرال ورال وطن إن المركز الدولة كستو بس ماسو مويه بحده وكذبره الدولة أنا وحنقوها يا في إلهي مويه لكن إن سنسوعني سوف مويه أنا وحنكور قضاء إنه بربري في أبغاسن في هرو قاهرة تمنع سوا ومعها معناها كالجعال وقوين ولسوي وحيكتها أو كلية صرت ملاحظة سياسيين كور قضافر لا تنسى مركزنا وحي كوشو قبونا سوف أنا ما أنت من إيواء أخوان بدن أو كلون الجرو سلا أسوأ وقانا وحول الله إن أنا عبيه وقرنين سياسة أسوأ وقبق معنا وحي كهي ما أنت waxaana aan ku tusinaa BBC maanta haddaad u jirtid barnaamij muhiim ku saabsan ma soo deenayso sababtoo xiriir badan ayuu la leeyahay oo annagaan ognahay marka BBC oo muhiim ka hadlayso maalinna waxaa laga yaabaa inaysan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka aan laga maqan taas oo ay keenay marka meelaha waaweyn oo khatarta ka soo gaaraya sidiisa waa iska xiran ninkaas riwaayada lagu yaqaano dhaqaale ahaan shirkadda insa ay macnaha gacanta ku haysaa maalinta burburka dhacay ilaa maanta shirkadda ayaanu shaqaynayay ilaa 15 sano shirkadda dhaqaale badan oo maanta ku filan ummadda Soomaaliyeed abaaraha aafeenayso lagu badbaadin karo waa haynaa ashamuun sida dawladda federaaliga u dhismatay sida aysan dawladda damac u galin ama aysan muuyo wax u weydiisanin ayuu wuxuu sameeyay in shaqaalihii maanta xanibaad uu saaro xanibaadaas oo ah mushaaradooda xuquuqdooda inaysan helin maanta laba markabooda waxaa ku jira rahan hadan haddeertaan hadda la xiriirtay saraakiisha sarsare iyo dawladda Yemen aba ku sheegayso in laba markab rahan ku jiraan nimankii mushaarad 3 bil 4 bil la siin jiray oo 20 bil ka maqnaa $100 siiyay storydan wuxuu sameeyay wax kale ma aha dhaqaale waa yaala uuna haystaa muuyo sababtoo dawladdan soo dhismatay warshado adduun ganacsi gaar ah samaystay shirkada Indian Ocean yiraahdo samaystay laakiin asaga dhegeystayaasha iyo daawadayaasha aynu jecelnahay barnaamijkeennii oo ay marti inoogu ahaayeen General Faarax Axmed Cumar Faarax Qare oo hore u ahaa taliye ciidamada badda Soomaaliya isla markaana hadda ah madaxa cilmi baarista xeebaha Soomaaliya iyo Cumar Shariif Jeeg oo hore u ahaan jiray mid ka mid ah injineeradii shirkadda kalluumaysiga Soomaaliyeed ee Shifco balse hadda xubin ka tirsan baarlamaanka 11aad ee dawladda federaalka Soomaaliya oo aan wareysiyada idinkaga soo qaaday isla markaana idinla socodsiinayay maanta ay taariikhdu ku beegan tahay 22 bishii koowaad 2023 anigoo ah Maxamed Macalin Ismaan Olman ayaa halkaas inoogu eg toddobaadkan inta aynu mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo halkani waa xogta suuqa media